بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد السجن تهي وحن هنبلي أدريا ومدة الصوماليات عيد أضحى أو معنت معلنت اللي بعد أي نوت تهي دمان مسلمين ملوا البقية شوغان عاسة المسلمين الصوماليات وحن بلينا يا عيد مبارك وحن آد أسود وين يا تيفيقا روح ذا بدن لي ويلا شيدا oo igu soo booqda guriga anigoo ka codsaday inaan macnaha u jeediyo gogasha laga dhigay maxay ahayd hobyo oo hambaliyeeyo maadaama aan ka tirsanahay aniga maxay ahayd galmudug aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa gogasha nabadeed oo meesha laga fidiyay isku imaadkana waxaan leenahay hambaliyo waxaan leenahay miro dhalkeeda ha noqdo mid loo aayo aad iyo aad ayaan macnaha u soo dhaweynayaa gogasha sharafta badan loo meesha laga fidiyay galmudug waxa weeye indhaheennii waaye haday galmudug toosto dawladda Soomaaliya oo dhan way toosaysaa ilaahay ha noo toosiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay meel kasta oo joogno hadaan reer galmudug aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxay ahayd tood gogashaas nabadeed oo meesha la dhigay waxaan leeyahay lagu guuleysto ilaahay waxaan ka baryayaa inay miro dhalkeeda oo noqdo miro lagu guuleysto oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u noqdo indho ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu saas oo macnaha oo soo waxayo gogasha la dhigayna waxa weeye nabadda hadii aan la raadin lama helo rag baa qarash ku bixiyay rag baa gogasha dhigay rag baa maxay ahayd u dadaalay ragaas dadaalay ee gogashaas dhigayna hambali ayaan u jeedinayaa anigu magacaygu waa Xalimo Macal Abikar waxaan ahay qof reer galmudug ah kabigayga galmuduga ilmahayga galmudug aniga galmudug anoo dhanba galmudug aan ahay hambaliyo ayaan leeyahay gogasha aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan ahay dadka hadaan joogi lahay Muqdisho ka qayb gali lahay waxaan hambaliyada uga soo dirayaa Nairobi aad ayaan ugu faraxsanahay waan u malaynayaa meel kasta ay joogan reer galmudug inay saas ugu farxi doonaan madaxda sharafta leh ee gogashaas dhigtay ee la isugu yimiday oo beesha habargidir hambaliyo ayaan leeyahay waa indhaheeni waa gogashayna meesha ku haboonayd ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa isku nabadoobo oo macnaha isku yimaada ilaahay inuu naga dhigo gogashaas waxaan jeclahay meel kasta oo qof kasta reer galmuduga meel kasta ay joogan in loo hambaliyeeyo waxaan aad iyo aad aan uga codsanayaa dal iyo dibad meesha aad joogtiin in loo hambaliyeeyo in wax lala qabto in la taageero aad iyo aad taageero ayaan u muujinayaa aniga gogasha la dhiga galmudug aad iyo aad ayaan u waxaynayaa hobyo waa meel nabadeed waa meeshii dawladda oo dhan ay ka timiday calanka aan ku naaloonayna meesha uu ka yimid waaye gobolada dhexe lagama maarmo waa xudunti beelaha hawiye khaasatan waa xudunti reer galmudug hambaliyo ayaan leeyahay waxaan leeyahay dadaalka aad wadaan ku guuleysta waxaana dhibta galmuduga laba ah waxaana dhibta galmuduga dad ka qayla dhaamina waxaana dhibta galmudug nabad looma rabo waxaana dhibta galmudug maxay ahaday ma ahan heshiis maanta ha ku haro warkaas inay galmudug heshiis tahay loo wada jiro gogasha ay habargidir dhigtay habargidir haday ku wada iskugu wada yimaadaan ku heshiiyaan ay u wici doonaan 11 qabiil ee la degan ee ayagu ka mid yihiin hormuudna ayaga ay u yihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gogashaas ragga dhigayna waa ugu hambalyeynayna oo deeqda iyo ku bixiyay juhdiga badan hambaliyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hal lagu guuleysto gogashaas quruxda badan leh hambaliyo ayaan leeyahay hobyo gogasha hobyo talagu hulbaan ka sugahaya go'aankaad qaadateen guulayo wahay gobtii habargidiraya gaarahaan dhigeen garsoorka wanaagsan ayaa u soo gudbiye ee guula laha siiya garabkiina geesinimo gobyo haddaan sheegahanba halyaan u diirahayaa halyeeyada joogahanba halyaan u diirahayaa gogasha nabadeedna guul baan ka sugahayaa go'aankaad gahartan guul baan ka sugahayaa oo guurtidiiya nabadda guul baan ka sugahayaa
siyaasiyiinteena guul baan ka sugayaa sama ku noolahaada aduun meel saraate markuu cabdulaahi doonaya dowladnimo war waad hurdayseen oo hawaadaasu idin mahayn waxaa la soo salaalay goorow bandiirad suuray dalkaas cabdulaahi ciise maxamuud ayaa ka yimiday wiilal badan baa ka yimiday oo reer galmuduga iyo odayaal badan waa meeshii dowladnimada ka timiday dowladnimada haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa gogoshaas inay noqoto gogoshii soomaaliya ay ku wada midoobi lahayd ay dhigeen wiilasheenna siyaasiyiinteenna xildhibaanadeenna aqalka sare waa u wada hambalyeynayaa intii meesha ka wada hadashay oo u horeeyey maxay ahayd generaal maxamed nuur galaal oo ku xigay cabdi xasan cawaale qaybdiid senatarkeena xildhibaanadeenna kulligood waan u wada hambalyeynayaa xildhibaankeen axmed macal fiqi waa u wada hambalyeynayaa kulligood gabdhaheeni ayaa ka qayb galay oo haweenkay meesha jooga kulligood waan salaamayaa gabdhihii xamar ka baxay kulligood waan salaamayaa waxaan leeyahay hambalyo hala garab gala ragga hiil iyo hooba waa in lala garab istaagaa annagana hanti iyo heer waxaan hayno waa la garab taagana iyo cod intaba waxaan leenahay gogoshaas ha lagu guuleysto ilaahay idinkiis galmudug tashuushka ku dhacay allaha ka bixiyo waa ka baxay gogoshaan ayaa ka bixisay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay oo guul ku dhameeyo go-aamada ugu dambeeyana ay noqdaan go-aamo soomaaliya ay ku naalooto galmudugna ay ku wada heshiiso hambalyo ayaan leeyahay hambalyo nairobi ayaan joogaa hambalyo ayaan leeyahay meel kasta oo ay joogaan reer galmudugna dal iyo dibadba waxaan rabaa in loo hambalyeeyo gogoshaas wanaaga badan leh ummadda soomaaliyeed hadhowdi looga wada yeeri doono hawshaan ilaahay ha hirgeliya ayaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay hambalyo guul iyo gobonnimo